صاحب هذا البيج كعصب تحي ندي رجع وده سبسكرايب لايك يا شير. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين كل تون أحسن داوديال وعشر كأني كسب سنة نفقد درت أباهن تهي وعشر كي تضباط وحنقادن دون ما تهدي إلى هي رهدو عريها مجعي سلي رهدو سلفر نانيس عريها سلفر واسا وعريها اللي حيتمناد كالجلك عرياشة سلفرت وبرمائها كمد أرورك اللحاد كالجلك عرياش تراتم كدو اللحية طبعا وليستم كدو صدن يلبا كافتون كيدنا ومينستو سلفرت waxay kamid tahay curiyaasha sida gaabiska u dhax socda geedka macnaha waxa weeye sida nitrogenka oo kale iyo potassiumka si dhaqso ah geedka uma dhex socoto ayadu waa gaabis socodkeedu waa yar yahay waxayna dhirtu nuugtaa iyada oo ah ayonka sulfate hadii sulfartu ka badato xadka loogu talagalay waxa yaraada lambarka pH-ka wuxuu ka hadlayaa acidnimada ama basenimada marka lambarku markasta uu yaraado walaxdu waxay noqon doontaa acid ayay noqon doontaa xagga acidka ay aadaysaa sidoo kale waxay hoos u dhigaysaa xaddiga nitrate-ka ah ee dhirtu nuugi karto sulfartu waxay ku badan tahay dusha sare ee carrada bilowga calaamadaha yaraanta sulfartuna waxay ka muuqdaan caleemaha cusub waxtarka sulfar waxay gashaa dhismaha amino acidya muhiim ah waxayna kala yihiin cytosine iyo methionine waxayna muhiim u yihiin samaynta borotiinada waxay qayb ka tahay sulfartu waxay qayb ka tahay dhismaha vitamin B1 iyo coenzyme A sida darteed waxay aad uga dhex muuqataa falgalada enzymyada ee oxidation yaraynta ah ama oxidation reduction reaction wuxuu qayb ka noqdaa maadooyinka sameeya dhadhanka iyo urta ee ku jira dhirta sida basasha iyo toonta wuxuu door muhiim ah ka qaataa neefsashada dhirta astaamaha yaraanta sulfar astaanta koobaad sulfar yaraantu waxay u egyihiin kuwa nitrogenka astaamaha sulfar yaraantu waxay u egyihiin kuwa nitrogenka laakiin astaamaha sulfar yaraantu waxay marka hore ka muuqdaan caleemaha cusub ee dhawaan soo dhashay ogow markaan ka soo hadlaynay nitrogen waxaan sheegnay astaamaha nitrogen yaraantu inay marka hore ka muuqdaan caleemaha hoose ee duqoobay sulfarta cagsi bay isku yihiin waxay ka muuqanayaan caleemaha cusub ee hadda soo baxay labo caleemaha cusub ayaa jaalle ama hurdi noqda midabka jaaluhuna wuxuu aad uga muuqdaa xididada caleemaha in ka badan inta uu ka muuqdo inta u dhaxaysa xididada haddii sulfar yaraantu sii socoto geedku wuxuu noqdaa mid gaaban cilin biseylka miruhuna dib ayuu u dhacaa waxaa yar inta astaamaha sulfar yaraantu dhirta ka muuqato maadaama uu ku jiro badi kushiimooyinka la isticmaalo fiiro gaar ah qodobka afraad oo aan ku sheegnay inuusan badanaa ka muuqanin dhirta maadaama uu ku jiro kushiimooyinka isticmaalo badankooda xaqiiqatan Soomaaliya xaqiiqa ma ahan Soomaaliya kushiimooyinka yaala sulfartu way ka maqan tahay dhammaantood intaan joogina hal kushiimo oo kaliya ayaan waxaan ku arkay kushiimo ama fertilizer ama bacrimiye ay ku jirto sulfar hal xab kaliyan ka arkay marka badi bacrimiyaasha Soomaaliya lagu isticmaalo sulfartu way ka maqan tahay siyaabo kala duwan baa sulfarka loo isticmaalaa iyadoo curiyaal kale la jirta la isticmaalaa iyadoo maartay powder ayaa la isticmaalaa marka Soomaaliya xaqiiqatan sulfartu waa ku yar tahay waa suurtagal in dhulka ay si fiican ugu jirto laakiin bacrimiyaasha dalka lagu gado sulfartu way ku yar sawirada noo muuqda waa caleemo kala duwan oo ay ka muuqato astaamaha sulfar yaraantu tani waa galey waxaad arkaysaa marka sulfartu ku yaraato galeedu sidan ayay u muuqanaysaa marka waxa kaliya laga rabaa waxay tahay inaad beertaada iyo sawiradan isbarbar dhigto oo fiirisid calaamadaha beertaada ka muuqda ma yihiin kuwan marka waxa ku cadaanaya waxa ka dhiman waxa ay yihiin geedahani waa babaay khaasatan sawirka midig iyo midka bidix sare ka muuqda labada waa babaay labada waxa ka muuqata sulfar yaraan ayaa ka muuqata halka sawirka bidix hoose uu yahay yaanyo ayadana sulfartu markay ku yaraato sidan ayay uga muuqanaysaa labadan geedo sawirka muuqda midna sulfarta ayaa ka maqan midka midig midka bidixna waa geed caadi ah waxaad arkaysaa midka sulfartu ka maqan tahay inuu gaaban yahay sidoo kale labadan geedo ayaanyada ah midka midig waa geed caafimaad qaba midka bidix sulfar ayaa ka maqan waxaad arkaysaa geedkii oo gaaban oo ka kale ka yar ama noqday cilin aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiina iyo dhageysigiina waan idinka mahadcelinayaa haddii casharka aad wax ka faa'iiday waxaan kaa codsanaynaa inaadan iloobin inaad tidhaahdo subscribe oo aad share garaysid isla markaana inaad comment ka bixiso ama wixii su'aalo oo idinku dhashay aad weydiisaan waan soo dhaweynaynaa aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu